بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقبة ابن عامر رضي الله عنه صحابي الجليل أيا رسول صلى الله عليه وسلم وحو ويديي من نجاه محال لغو بدبادي كرا ما أنت سؤال شاس ayaa mudan inaan aniga iyo idinka aan isweydiino maxaa lagu badbaadi karaa ummadda islaamka inay isweydiiyaan maxaa lagu badbaadi karaa. rasuul sallallahu alayhi wasallam saddex arin ayuu rasuul sallallahu alayhi wasallam u sheegay Uqba. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri kow amsik alayka lisanak, carabkaaga xafid carabkaaga إلى عرب كاغا. رسول صلى الله عليه وسلم حديث كله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قفك الله رميسا ما لنت يوم القيامة رميسا خيرها كو هذا أما اسكا أمسو إنا نقول أمت خير كو هذا الشيء إنا نقول أو شرتك أمستا خير إنا كو هذا أن شرتك أمسنا. maanta waxay noqotay nin walbo ayaa camera haysta ilaa man raxima rabbu. nin walbo wuxuu sheegayaa, nin waxa waaye dumarku ka hadlayaa, nin dumar u caynayaa, nin shakhsi u gafayaa, nin qabiil kale oo ayuu caynayaa. maanta ummadii xataa kan wax caynayaaba la jecel yahay, kaasaaba loo soctuma waxa le kasii wad hore u soco sheekh adaab ugu fiican magaalada. fitankaasaan ku jirnaa. marka aniga iyo idinka waxaa loo baahan yahay inaan carabkeena ilaalino. wixii laga xishoon jiray ayaa laga hadlaya, gogoshiyaa laga hadlaya, carabka laga hadlaya. carabkii xad ma leh, carabka waa iska hadlaya. ummadiina kii xumaay ayaaba loogu jecel yahay oo la rabaa isagaa loo sactuma leeyahay. nin dumar caynaya ayaa waxaa la leeyahay geesiyaata hore u soco, xasbuna allah wa nicma alwakiil. marka carabka inaan ilaalino. ninkii gabayaaga muxuu yiri ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldiqannaka inahu thucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiila lisaanihi kaana tahaabu liqaa'uhu shujcaanu. insaaniyahow carabkaaga ilaali, yuusan ku qaniinina waa mase. meeqaa qabuuraha ku jira oo carabkooda dilay liajli carabkooda ay u dhinteen. haddii raggaa oo geesiyaasha ahaa haddii dagaal isaga hor imaan lahaa ay naga raani lahaayeen, laakiin waxa dilay waa carabkana dilay. marka inaan carabkeena ilaalino ayaa loo baahan yahay, aan khayr ku sheegno. rasuul sallallahu alayhi wasallam arinka labaad wuxuu ku yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam Uqba walyasacka baytuk, gurigaaga joog, qalwo gurigaaga ku gal, xaaskaaga iyo ilmahaaga waqti la qaado, naftaada waqti sii, naftaada waxay ku kabacdo, maskaxdaada kobci, quraanka ku akhri, sunnada ku akhri, naftaada kobci. guriga joog, banaanka fitna taala, meelahaas kale fitna taala, meelaha la fadhiista fitna taala, meelaha kale fitna taala. gurigaaga joog. waliyasacka baytuk. rasuul sallallahu alayhi wasallam xadiis kale wuxuu ku leeyahay ixras calaa maa yanfacuk, ku dadaal waxa ku anfacay. maxaa aniga ay anfacay, maxaa adiga ku anfacay, inaan ku dadaalno waxana anfacay nolosheena adduunyo iyo aakhiro na anfacay. laakiin maanta ilaa man raxima rabbu, dadka inta badan waxaana anfacayn siyaasad, hebel shakhsiyadkiis la caayo, maanta dhan ninkaa laga hadlo. ninkaa intaa caynaysid naftaadaa meel ka bixayso. marka nafta inaad la xisaabtanto oo aad meel mariso, adduunyo iyo aakhiro aad ku dadaasho ayaa muhiim ah. qofkaa siyaasiga ah, madaxweynahaas, kii imaada iyo kii soo gala iyo kii baxaba, inaad ilaahay ugu duceysay inuu ilaahay u fududay. waliyasacka baytuk, gurigaaga joog. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Uqba
أرنك سدحان وابكي على خطيئتك أوي أوي حمانت أتصوصو بسي ذنوب تادا إيا حمانتي أوي أو كشاللاي إنان كشاللاين ذنوبتي أتصوصو بني أنا قابل ذنوبتين سبحان ملك القدوس يعني إلهي سبحانه وتعالى إنان برن أو أين أبهن وابكي على خطيئتك وأوي ذنوبتي أنا أنصبني ومانول بأنصبني وحمانت أنصبني إنان أوينو إلهي سبحانه وتعالى أن أطوب كأنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. برامج عملية تفعلها في اليوم والليلة، وعمل واحد تعمله في الشهر مرة واحدة، ثق تماما أنك ستعيش بدون ضغوطات، تعيش حياة جميلة ورائعة. أول هذه الأشياء حافظ على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس علاج أيها الناس، الصلوات الخمس. ثانيها حافظ على السنن والرواتب القبلية والبعدية، 12 ركعة تصليها في اليوم والليلة يبني لك الله عز وجل بيتا في الجنة، وهذا ضمان لك بأنك إذا مت دخلت الجنة. صعب عليك 12 ركعة تصليها في اليوم والليلة. ثالث الأشياء صلاة الضحى. احذر أن تترك صلاة الضحى، صلاة الأوابين. صلي ركعتين، 4 ركعات. إذا صليت 4 ركعات في أول اليوم يكفيك الله شر آخره. الضحى لا تتركها. صلاة الضحى إذا صليتها يوميا فكأنما اعتمرت وحججت حجا صحيحا سليما. هذا الثالث. الأمر الرابع الوتر. احذر أن تنام دون أن توتر، لا تنم إلا وقد أوترت ولو بركعة واحدة. صعب عليك ركعة واحدة، ركعة واحدة. فإذا توضأت، شوف كيف من حفظ الله لك، إذا توضأت يحرسك ملك يبيت بين شعارك ودثارك، يبيت معك الملك، وما تتقلب يمين شمال إلا ويقول الملك لك اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، فإنه بات متوضئا. هذا الرابع. الخامس أن تصوم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، فكأنما صمت السنة بأكملها. الأمر الذي يليه أذكار الصباح والمساء. لا تترك، لو قطعت لا تترك أذكار الصباح والمساء. ولو ذكرت ذكرا واحدا، قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بس هذا الدعاء، تراك ذكرت أذكار الصباح والمساء. وفي المساء مثلها. وآخرها أذكار النوم. لا تنم إلا وقد ذكرت أذكار النوم، لو فقط دعاء واحد: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ونام. تدري ايش يحصل لك؟ غفر الله لك ذنوبك كلها، وإن كان فررت من الزحف، وإن كانت ذنوبك عدد رمال الدنيا بأكملها. صعبة؟ إذن عش مع الله، خل حياتك مع الله منذ أن تستيقظ صباحا إلى أن تنام. ستجد سعادة، ستجد راحة، ستجد بإذن الله هدوء وطمأنينة. فطبقوا هذه الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة اللهم املأ قلوبنا إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ونفسا بك مطمئنة. اللهم يا حي يا قيوم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك، اللهم علق قلوبنا بك وحدك يا